daawada ka waran haddii adigoo shaqo la'aana ay kuu soo baxdo inaad gasho tartan shaqo balse aad ogaatid in shaqadaasi aad ku guuldaraysan doontid tartamayaasha kale awgeed maxaa samayn lahayd daawade si aad ugu guulaysato shaqadaas soo dhawaada jaalyaal maanta filimka wuxuu ku bilaabanayaa maalin qurax leh oo iftiin badan maansi iyo qoyskiisa waxay cunayaan qada aad u wanaagsan taasoo ay uga mahadcelinayaan hilib qaali ah ay usoo dirto shirkadda waraaqadaha samaysa ay uu ka shaqeeyo abaalmarin ahaan maadaama uu ahaa shaqaale aad u wanaagsan muddo 25 sano ah gabarta Sirion oo leh baahi gaar ah ayaa ku ciyaaraysa qalabka seelooga halka xaaskiisa Mary ay furaysa hadiyad qaali ah oo soo iibsaday maansuuna aad buu u faraxsan yahay noloshiisa maalinka xigtay isagoo jooga warshada maansu wuxuu ogaadaa in shirkadda iibsiin dad Mareykan ah kuwaas oo doonaya inay dhimaan 20% shaqaalaha khadka soo saarka ayna rabaan liiska dadka la eriyo maansu wuxuu u tagaa mulkiila cusub si uu u qanciyay inuusan cidna shaqada ka herin laakiin mulkiiluhu iska indhatiraa shaqaale kale ayaa weydiiyay maansu haddii loo soo diray cunto qaali ah isagoo u sheegay in hadiyadaas loo diray kaliya shaqaalaha shaqada laga eriyay si ay u dhigtaan sugootin dadban taasina waxay ka dhigan tahay in maansu hadda uu yahay shaqo la'aan isagoo aan weli qoyskiisa u sheegin maansu wuxuu go'aansaday inuu ku biiro koox taageero ah oo loogu talagalay dadka shaqo la'aanta ah hogaamiyaha kooxda ayaa qof walba maraya dhaqan ay wejigooda taabanayaan iyagoo ku celinaya in shaqada ay waayeen aysan khaladkooda ahayn islamarkaana qoyskooda ay taageeri doonaan taasi waxay maansu siisaa xoog uu ku waco xaaskiis Mary oo uu sheegay wixii dhacay laakiin wuxuu u ballan qaaday inuu shaqo heli doono muddo 3 bilood gudahood 13 bilood kadib maansu wuxuu ka shaqeynayaa dukaanta fariiqa oo mushaar aad u yarlay sidoo kale saacado aad u adag sidoo kale wuxuu leeyahay xanuun ilig oo aad u daran laakiin wuxuu diidayaa inuu lacag ku bixiyo dhakhtarka ilkaha maalin maalmaha ka mid ah saaxiibkiis ayaa u helay wareysi shaqo aad u muhiim ah markaas maansu wuxuu mamliis ka codsaday inuu hore uga baxo shaqada tan waxay sababtay in shaqada laga eriyo in khasab ku tahay inuu bixiyo dharkiisa shaqada wuxuu ku dhamaadaa wadada isagoo qaawan kadib saaxiibkiis ayaa wadigay in shirkadda wareysiga qabata ay dadka weydiiso meesha ay ku liitaan taasoo ah su'aal aad u xasaasi ah kadib wuxuu ahaa xaaskiisa Mary si uu helo fikrad ku saabsan sida uga jawaabi lahaa laakiin waxay tiraahdaa inuu dhirta aad u jecel yahay markii Mary boosada eegto waxay ogaataa inay ka dambeeyaan lacag bixinta guriga galabtii maansu wuxuu tagay wareysi isagoo aad u walwalsan markii la weydiiyay dhibiciisa daciifka wuxuu sheegay inuusan awoodin inuu maya yiraahdo tanina waxay sababtay inuu ku guuldareyso wareysiga habeenkaas Mary waxay ku dhawaaqdaa inay shaqo ka heshay rug caafimaad oo ilkaha ah waxay sidoo kale diyaarisay heshiis dhammaan howlaha dheeraadka ay qoysku joojin doonaan ilaa maansu shaqo ka helayo inkasta oo Rion loo ogolaaday inay sii wato casharada seelooga waxay rabtaa inay baabuurta ku bedelaan kuwa yar oo jaban kana ay iibiyaan guriga si ay ugu bixiyaan deymaha ay ugu jiraan guri karo ah soo aad ugu xumaaday fikradaas wuxuu xasuusinayaa in gurigan uu yahay guriga carruurnimadiisa markaana uu si adag uga shaqeeyay dayactirkiisa laakiin Mary waxay siisay warqad ka timid bangiga taasoo sheegaysa inay lumi doonaan guriga 3 bilood gudahood haddii aysan bixin lacagta waxay xigtay waalidka Mary waxay yimaadeen guriga waxayna ka xisteen eeyaha qoyska in carruurtu waxay u sheegtay inay dib u heli doonaan marka maansu shaqo helo nin la yiraahdo wow ayaa yimaaday si guriga u iibsado isagoo eegaya guriga isna aad uga xumaaday arrintaas si daraadin uu ka baxay guriga kadib wuxuu ku arkay wiilkiisa Sion oo la jooga saaxiibkiisa ugu dhow Jion Ho kaasoo sida ma falan u noqday wiilka Wo dhanka kale Rion wuxuu u ooyisay ayay laga qaaday maansu wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono wareysiga ku fashilmay awgeed maansu wuxuu dhig dhigaa jilbaha wuxuuna bariyaa maamulaha meel lagu sheekeynaya dhibkiisa isagoo xitaa xira albaabka masqusha madaxa shirkadda ugu qasbay inuu maqlo maamula la yiraahdo Sinjo ayaa riixa maansu si uu sii daayo madaxa shirkadda wuxuu sheegay inuu dhaqmo si sharaf leh wuxuuna siiyay lacag uu ku cabo cabitaan si uu baartago maansu wuxuu cabayaa whisky isagoo daawanaya muuqaalaha Sinjo wuxuu ogaaday inuu yahay qof caan ah oo guuleystay isla waqtigaas Mary ayaa soo wacday muuqaal ahaan iyadoo ku calaanaysa inuu baar joogo sidoo kale u sheegtay in macalinka seelooga Rion uu doonayo inuu la hadlo maalmo waxay la kulmaan macalinka kaas u sheegay inuusan sii bari doonin gabartooni Rion sababta waxay u baahan tahay casharo aad u heer sare oo qaali ah habeenkaas maansu iyo Mary waxay daawadaa muuqaalaha shaqo ee uu sameeyay Sinjo waxay sheegtay in shaqada Sinjo ku haboonaa la ninkeeda maansu si kaftan u leh in Sinjo ahayd inuu hilaac ku dhaco halkan ayaa maansu maskaxdiisa ku dhalinaya fikrad maalinta xigtay maansu wuxuu bilaabay inuu dabagalo Sinjo magaalada dhexdeeda kii Sinjo si lama filaan u istaago si uu telefoon u qabto wuxuu ku sigtay inuu arko wuxuuna si degdeg u carraa dabaq si uu u dhunto isagoo saaran dusha sare dabaqa ayuu eegaya Sinjo wuxuu kor u qaaday dheeri ubax ah isagoo dhowr ilbiriqsi kor ugu haya madaxiisa kadib uu dhigaa laakiin wuxuu soo qaatay mid ka sii weyn ku dhaweeyay inuu ku turo milkiilaha dheriga ayaa ku qabtay isagoo gacanta kula jira sidaa daraaddeed maansu iska dhigaa wuxuuna iibsadaa geedkaas si uu uga baxsado xaaladda maansu wuxuu garwaaqsaa in xitaa haddii Sinjo meesha uu ka baxo uusan hubin inuu sida shaqada heli doono sababtoo tartan badan oo jira awgeed galabtii maansu wuxuu guriga u soo laabtay isagoo watay qori carruureed telefoon ala aqoonsan karin sababta wuxuu leeyahay qorshe cusub qorshihiisuna wuxuu ku bilaabay isagoo wacayo jooraan ku saabsan warshadaha waraaqaha si uu ugu dhajiyo xaysiis shaqo oo been abuur ah maalinta xigta nin la yiraahdo Balmo ayaa ka cariisay xaaskiisa Era tani markii uu waayay shaqadiisa wuxuu waqtigiisa oo dhan ku qaatay isagoo cabay khamri isla markaana iska ilaalinay inuu qubaysto markii Mary ay bandhig u baxdo Balmo wuxuu akhriyaa jooraanka warshadaha waraaqaha wuxuuna halkaas ka helay xaysiiska shaqo ee beenta ee maansu uu sameeyay kaas oo raadinaya dad khibrad sare u leh warshadaha waraaqaha tan waxay ku dhiirigelisay Balmo inuu ugu dambeyn u ka kaco sariirta uu qubaysto kadibna uu qoro warqad codsi oo uu ku faahfaahinayo waayo-aragnimadiisa dhawaan maansu wuxuu leeyahay boqolaal codsi shaqo oo loo soo diray xaysiiskiisa wuxuuna akhriyaa dhammaan waraaqaha isagoo la barbardhigaya naftiisa ilaa ay ka haraan 2 nin oo kaliya uu dareemay inay kaga xoog badan yihiin wareysiga shaqada Balmo iyo Sinjo kadib markii uu gubo dhammaan codsadii kale maansu wuxuu ka qaatay qoriga xasuusta aabihiisa dagaalka Vietnam wuxuuna meesha ku bedelay qoriga carruureedkii xigta maansu wuxuu bilaabay inuu dabagalo Balmo wuxuu ka helaa meel wanaagsan oo geedaha dhexdeeda ah halkaas uu guriga kaga daawanayo doobiraha sib daras wuxuu ogaaday in gurigu leeyahay kaamirada amniga
si lama filaan wuxuu arkaa nin dheere ah oo jacaylka qarsoon ee eera ah oo kasoo baxaya daaqada dambe. mansuun wuxuu daawanayaa sidii ninkaas uga fogaanaya kaamirada amniga. mansuun si taxadar leh ayuu u fiirsadaa. ninkaas uu bilaabay inuu usoo socdo dhinaca keynta. mansuun u argagaxaa wuxuuna dib ugu cararay gaarigiisa. isla maalinta xigtay mansuun mar kale ugu soo laabtaa isla meeshii, laakiin markan baalma ayaa ku dhow inuu arko isagoo raadinaya boqosha. laakiin mansuun si dhib yar ayuu isku qariyaa. wuxuuna soo saaraa qorigiisa isagoo isku dayay inuu dilo, laakiin aad buu welsan yahay mana awoodi karo inuu toogto. isla waqtigaas eera ayaa kusoo birtay ninkeeda waxayna wada yeeshaan nasasho. baalma ma dhegeysto hadalka xaaskiisa isagoo eegaya taleefankiisa isagoo sugaya fariin ka timaada shirkadii waraaqaha. tan waxay ka caraysaa eera waxayna ku canaanataa inuusan aqbalin shaqadii makhaayad ahayd oo aabaheed usoo bandhigay. sababto ah weli wuxuu ku dhagan yahay warshadaha waraaqaha. baalma wuxuu xasuusinaya xaaskiisa in warshadaha waraaqaha ay sanado badan qoodiyeen qoyskooda, wuxuuna isla mafaan ugu fikiraa in shirkado kale ay waraaqa usoo diraan. markaas ay si degdeg ugu ordaa guriga si ugu hubiyo sanduuqa boostada, halka eera ay cuntada kusoo tuurayso iyadoo xanaaqsan. si lama faana maanso ayaa buurta kasoo rogmada waxaana aragtay eera waxaana qaniina mas. markii meera ay aragto dhaawaca waxay ku xirtay lugtiisa xarig si dhiig u joojiso, waxayna ku amartay inuu kor u hayo lugta. kadib waxay kuleelisay mindi iyadoo dab shidaysa waxayna jeexdaa meesha qaniida ku taal. kadibna waxay bilowdaa inay kasoo nuugto. manso aad buu wanaxaa arrintan wuxuuna isu dayaa inuu iska riixo, laakiin eera waxay ku adkaysaa inay sidan horey u samaysay. markaas manso waxaa soo wacday xaaska samiir wuxuuna u sheegay inay dib usoo wici doono. markii eera ay dhamayso waxay siisay ul uu isaga difaaco masaska. habeenkaas manso wuxuu baarayaa maskii qaniinay, wuxuuna ogaanayaa in eera ay siisay tilmaamo gabi ahaanba khaldan. dhakhaatiirtu waxay ku talinayaan in lugta hoos loo dhigo sidoo kalena aan la nuugin. kadib isaga xaaska samiir waxay bilaabeen inay qoob ciyaar ciyaaraan iyagoo xasuusinaya waayihii hore. laakiin mir waxay soo hadalqaata wiilkooda Sion waxayna sheegaysaa in Sion uu yahay wiilka ay u dhashay nin kale, balse manso uu guursaday markii wiilkaasi uu ahaa 2 sano jir. sidaas daraaddeed Sion marba wuxuu maleeyaa in manso yahay aabihiis dhabta ah. mir waxay isweydiinaysaa inay runta u sheegaan in kale, laakiin manso ka diiday wuxuuna u sheegay inuu yahay aabihiis dhabta ah maadaama isaga uu soo koriyay. manso wuxuu sheegay in guriga uu maqnaa wareysi shaqo uu raadinayay. mirin waxay u sheegtay inuu shaqo kasta u aqbalo xitaa hadiisan la xiriirin warshadaha waraaqaha. laakiin manso waa sida baalmo oo kale wuxuuna ku adkaysanaya in warshadaha waraaqaha ay muhiim u yihiin noloshooda. maalinta xigtay manso si qorsade ayuu mar kale u galaa guriga baalmo isagoo ka fogaanaya kaamirada amniga sidii uu sameeyay ninka dhalinyarada ahaa. si dhaqsa ayuu dabaq sar u aadaa halkaas oo ka maqlay eera oo la joogta jacaylkeeda qar, laakiin baalmo guriga ma joogo. sidaas daraaddeed manso waa inuu baxo. isagoo gaariga wada oo jidka maraya manso wuxuu arkaa baalmo oo guriga kusoo socda. markaas ayuu si dhaqsaa gaariga dib ugu soo celiyay isagoo soo dabagalaya. isagoo joogo banaanka manso waxay dhigtaa taleefanka beenta wuxuuna soo wacaa baalmo isagoo iska dhigay warshada waraaqaha. wuxuu u sheegay in la doonayo wareysi shaqo uuna hadda isla markiiba xafiiska u yimaado sababtoo mulkiilaha shirkadu wuxuu kusii jiraa safar degdeg ah. baalmo wuu aqbalaa laakiin marka hore waa inuu gudaha galaa si uu dharka usoo bedesho. taas waxay sababtaa in si filan u arko khiyaanada xaaskiisa wuxuuna qabtaa eera iyo jacaylkeeda qarsoon. baalmo si xun ayuu u burburaa wuxuuna ku dhacaa banaanka isagoo murugaysan. kadib wuxuu isku dayaa inuu shirkada waco si uu wareyska dib ugu dhigo, laakiin manso oo meel fog ka daawanaya si ula kaca uguma jawaabo taleefanka. kadib baalmo oo niyadjabsan ayaa u baxay dibadda. kadib manso wuxuu soo qaadaa xaaskiisa miri taasoo aragta bac cunto degdeg ah oo guriga taal, wayna ka niyadjabtaa inuu lacag kusoo bixiyey. miri madaxeeda shaqada Jionho ayaa maqlay in manso uu ilig laga hayo, wuxuuna u sheegay inuu rugta ilkaha u imaan karo xilli kasta si loo daaweeyo maadaama Jionho uu yahay nin dhalinyaro ah oo soo jiisha leh. manso aad buu ugu hinaasaa wuxuuna xaaskiisa miri u sheegay inaysan mar kale hadalkiisa kusoo qaadin. habeenkaas dambe manso mar kale wuxuu ku laabtaa gurigii baalmo isagoo qoriga ku qariyay gudaha gacan kashiga jikada ah. wuxuuna helaa baalmo oo guriga jooga oo murugaysan isagoona dhegeysanaya hayso muruga leh. manso gacantiisa ku fiiqo baalmo wuxuu moodaa inuu yahay jacaylkii qarsoonaa ee xaaskiisa. manso wuxuu bilaabaa inuu iska siibo dhowr gacmo gashi si uu u muujiyo qoriga. isla markiiba eera ayaa guriga soo gashay waxayna aragtaa waxa dhacaya, waxayna qaadataa abaalmarin shirkadeed oo culus si ay manso ugu dhawato, laakiin way istaagtay marka ay maqasho baalmo oo leh waxaad kaliya ii jeceshahay lacagtayda. mansona si lama filaan ayuu u qarxaa wuxuuna ku qeylayaa baalmo isagoo ku eedeynaya inuusan xaaskiisa dhegeysan islamarkaana uu iska inatiray talada ahayd inuu shaqo kale aqbalo. baalmo isagoo ooya ayaa sheegay inuu injineer yahay islamarkaana uu qalmo shaqo ka wanaagsan dukaamada, wuxuuna u sheegay inuusan qaadi karin sanduuqyada culus maadaama dhabarka laga hayo. eera oo dhegeysanaysa waxay ku tilmaamtaa marmarsiyo nacasnimo ah. tani waxay ka nixisay manso wuxuuna si kama u ridaa xabadda taasoo garabka kaga dhacda baalmo. dib eera waxay ku garaacday manso abaalmarintii taas oo sababtay inuu qoriga sii daayo. saddexdoodu waxay ku dhacaan dhulka waxayna bilaabaa inay u dagaalamaan dhanka qoriga. eerana waxay isku daydaa inay caajiso manso. baalmo ayaa qoriga qabsada wuxuuna ku fiiqaa labadooda, laakiin manso wuxuu laadka dhuftaa eera taas oo sababtay in baalmo uu dheelitir beelo. qoriguna marka ayuu dhulka ku dhacaa dagaalkana wuu sii socdaa. ugu dambeyn eera ayaa qoriga qabsata xabad kale ayaana si kama u dhacda. mansona si argagax ayuu cararaa halka baalmo uu daba ordayo, laakiin markuu banaanka u baxo eera ayaa isaga toogata. kadib eera ayaa manso daba gashay iyadoon si aan kala socdayn rasaasta u ridaysa. mansona wuxuu si dhib loogu guuleystaa inuu gaariga galo oo uu baxsado. markuu manso baxsanayo wuxuu ogaadaa in shidaalka gaariga uu ku dhow yahay inuu dhammaado, sidaas daraaddeed wuxuu istaagaa kaalin shidaal. wuxuuna arkaa in xaaskiisa miira ay soo wacday 10 goor. markaas ayuu isku dayaa inay dib u waco laakiin kama jawaabto. kadib wuxuu wacaa carruurtiisa kuwaas oon garanay meesha ay hooyadooda joogto, laakiin waxay maqleen iyadoo leh aabiin ayaa arrintan ka bixin doonaa qiimaha. tani waxay manso xasuusinaysaa inuu ilobay xaflad dhar xirasho oo ahayd inay qoys ahaan uga qayb galaan. dhanka kale miira waxay tagtaa xafladda iyadoo la socota Jionho
Ho kaas oo xitaa bartay qob ciyaarka ay ugu jeceshahay si uu la dheelo. Dambe Mansu aad u murugada markuu arko xaaskiisa oo ninka la dheelaysa isagoo si aan raaxo lahayn u ciyaaraya ayuu usoo dhaqaaqaa dhankooda. Mirina way aragtaa laakiin way iska indhitirtaa. Dib Mansu wuxuu dib ugu laabtaa guriga Baalmo. Intii Era ay ku mashquulsanay jacaylkeeda qarsoon, Mansu wuxuu qadaa god wuxuuna ku ridaa meydkii Baalmo. Dibna wuxuu dib u qaataa qorigiisii. Habeenkaas Mira waxay guriga ku aragtaa Mansu oo baaraya armaajooyinkeeda isagoo eegaya dharka hoose ay xiratay. wuxuuna ku eedeynaya inay xiriir la leedahay Jianho isagoo xitaa unaga dharkeeda hoose si uu ogaado inay wax soo dhex mareen. Mirina aad bay uga xanaaqdaa waxayna ku eedeysaa inuu aad uga fogaado waxayna ogaatay inuu markale khamri cabay. Way canaantay iyadoo u sheegaysa inuu horey u lahaa balwad laakiin 9 sano uu iska dhaafay. Waxayna sidoo kale xasuusisaa in xilliga cabitaanku cabi jiray uu garaaci jiray wiilkeeda Sion. Sidoo kale Miri waxay ku qaylisaa inuusan wax kalsooni uusan ku qabin iyada. Mansun wuxuu sheegay inay u baahan yihiin inay isku dubnaadaan maadaama waqti adag ay ku jiraan. Laakiin Miri waxay tilmaamaysaa inuu aad u qarsoodi badan yahay maalmahan ayna ogaatay masaafada badan ee ku socday gaariga cusub. waxayna ku eedeysaa inuu yahay isaga qofka khiyaameynaya laakiin Mansun wuxuu ku adkaysanaya sheekadaheed inuu shaqooyin raadinayay kadibna wuu baxay isagoo si kama wajiga ugu dhuftay albaabka. Baana xigtay Mansun wuxuu bilaabay inuu dabagalo ninka labaad ee tartanka shaqada uga haray Shijo. Shijo wuxuu ka shaqeynayaa dukaan kabo si uu u caawiyo gabadhiisa ilaa uu ka helo shaqo ka fiican. markii gabadhiisu timaado si ay lacag uga codsato macmiil sugaya ayaa ka carooday isagoo iskaga tagay isagoo waxba aan ka iibsan. Mansun wuxuu bilaabaa inuu dareemo dambi ku saabsan qorshihiisa. markii Shijo arko Mansun wuxuu maleeyaa inuu yahay macmiil. Mansun wuxuu dareemaa xumaan badan wuxuuna iska dhigayaa inuu kabo u iibinayo gabadhiisa. labadoodu waxay bilaabaan inay ka sheekaystaan jaceylkooda warshadaha waraaqaha dareenka shaqo la'aanta iyo dhibaatada carruurta korinta. Mansun wuxuu sheegay inuu rabo gabadhiisa Rion inay timaado oo kabaha tijaabiso ka hor intuusan iibsan wuxuuna u ballan qaadaa inuu markale usoo laaban doono uu ka iibsan doono. fiidkii Mansun wuxuu gaariga dhigtaa wado dhinaceeda isagoo iska dhigaya inuu gaarigu ka celisan yahay. markii Shijo halkaas marayo wuxuu iska dhigayaa inuu caawinayo. Mansun wuxuu sheegay inuusan kabaha usoo noqon sababtoo soo jiista gaariga ay qaali ku tahay awgeed. dhammaantan waxay ahayd qorshe uu horey usii diyaariyay Mansun sababta wuxuu ka akhriyay CV-giisa Shijo inuu leeyahay khibrad dayactirka mashiinada. intii Shijo motorka eegayay Mansun wuxuu si tartiib ah ula soo baxay qorigiisa wuxuuna ku fiiqay isagoo wejiga daboolanaya si uusan u arkin. Shijo si lama filaan ah ayuu u riixaa wuxuuna isku dayaa inuu baxsado laakiin Mansun si degdeg ah ayuu u toogtaa wuuna dilaa. kadib wuxuu meydka ku qariyaa boostakaanada dambe ee gaariga wuxuuna sidoo kale qaadaa dashtamka gaariga Shijo laakiin isagoo baxaya wuxuu ilaaway inuu qolofkii rasaasta uu meesha ka qaado. iyadoo roob ka da'ay magaalada Sion wuxuu si qarsoodi uga baxaa guriga wuxuuna la kulmaa saaxiibkiisa Jianho kaas oo garanaya nambarka sirta ah ee qufulka dukaanka aabihii. labada wiil waxay jebiyaan qufulka waxayna gudaha u galaan dukaanka iyagoona xadaya telefoonada gacanta qorshoodana uu yahay inay dib u iibiyaan si lacag uga helaan. nasiib daro booliska ayaa dabagala markay baaskiilada ku baxsanayaan si ay booliska u mashquuliyaan labada saaxiib iga kala tagaan halka baabuurka boolisku ay dabagalaan Jianho. sidaas daraadeed Sion si nabada ay guriga ugu laabtaa. markii Mansun guriga u yimaado wuxuu arkaa baaskiilka Sion oo dhoobo ka buuxdo wuxuuna si fudud u dhaqaajiyaa baaskiilka kadibna wuxuu bilaabaa inuu godqodo si uu aaso meydka Shijo laakiin aad buu u daalan yahay wuxuuna ku dhacaa hurdo ka hor intuusan aasin. subaxdii xigta booliska ayaa yimaada oo qabta qoyska. Mansun wuxuu ogaanayaa in dharkii Shijo kasoo muuqanaya boorsada dambe ee gaariga sidaas daraadeed si degdeg ayuu ag istaagaa si uu u qariyo. hadda qoysku waa inay u wada raacaan saldhigga booliska iyadoo meydka weli uu ku jiro gaariga. marka saldhigay gaaraan Mansun wuxuu wiilkiisa kula taliyaa inuu sheego in Jianho uu ku qasbay tuuganimada wuxuuna siinayaa hadal ku saabsan inay muhiim tahay inuu ilaaliyo qoyskiisa. dhanka kale Miri waxay gashaa musqusha waxayna iska bixisaa rabaaj jiddadeeda kadibna waxay la hadashaa Wow si uusan dacwo ugu soo oogin. waxay isku dayaysaa inay maskaxdiisa mashquuliso iyadoo si ula kaca uga dhigaysa in la arko qayb ka mid laabteed iyadoo fanaanadeeda ciriiri tahay. waxyar kadib Mansun ayaa kusoo biira wada hadalka. Mirina way ka niyajabtaa markay aragto mar kale inuu sigaar cabayo. Mansun wuxuu sheegaa Wow inuu la hadlo booliska wuxuuna ogaaday in Jianho uu dameeyay kaliya qayb ka mid ah kaamiradaha amniga. sidaas daraadeed waxaa jira muuqaal muujinaya Wow oo jaceylkiisa qarsoon keenaya dukaankiisa u sheegay in hadduu dacwada uusan la laaban ay xaaskiisa ogaan doonto khiyaanadiisa. Wow oo aad u xanaaqsan wuxuu ku sigtay inuu Mansun garaaco laakiin Miri ayaa joojisay. Mansun si geesinimo ayuu u sheegaa Wow inuusan guriga ka iibin doonin kadibna lamaano way baxaan. markay guriga ku noqdaan Mansun wuxuu qalka Sion ka helaa dhammaan telefoonada la xaday iyo sidoo kale sigaar. wuxuu telefoonada ku wareejiyay xaaskiisa Miri laakiin sigaarka jeebka ayuu ku qarsadaa. labadoodu waxay aadaan godka Mansun horey u qoday waxayna ku aasaan telefoonada. miskiinta Miri waxay u maleysaa in godka loo qoday geed cusub laakiin Sion la sii daayo iyadoo wax dacwada aan lagu helin. Mansun wuxuu dib ugu celiyaa sigaarka si uu u ekaado aaba qabow. habeenkaas Mansun wuxuu doolaa darbiyada aqalka dhirta kadibna wuxuu soo saaraa miinshaar koronto dushiisa waa inuu jiro meydka Shijo. isla waqtigaas Sion wuxuu baxaa saqaf sare ee guriga si uu si qarsoodi halkaas sigaar ugu cabo maadaama saqafka aqalka uusan si buuxda u daboolnayn. Sion wuxuu si toos ah u arkaa aabihii oo la tacaalaya meydka kadib cabsi iyo labalabeyn badan Mansun ma awoodo inuu meydka jarjaro. halkii wuxuu isticmaalayaa xarigga gaarka ah ee beerta wuxuuna meydka u xiraa sida kubadda wuxuu ku ridaa bac weyn wuxuuna ku aasaa beerta
isagoo dusha kaga beeriya geed cusub. muddo yar kadib laba baaryaal ayaa yimaada guriga Mansuur sababta waxay baarayaan maqnaanshaha Baalmo iyo Sinjo. labadina waxay ahayd saaxiibo weyn is yaqaaneen waxayna ahaayeen labada qof ugu sareeya loo xilin lahaa shaqada shirkadda waraaqaha. sidaas daraaddeed boolisku waxay ka shakiyeen dhammaan codsiyaashii kale oo ku jira Mansuur. Mansuurna wuxuu isku inuusan weligiisan arkin labada nin laakiin baarayaashu way ka shakiyeen waxayna ogaadeen inuu hadlayo sidii inay dhinteen oo kale. inkastoo iyagu kaliya u sheegay inay maqan yihiin waxay sidoo kale sheegeen inay heleen qolofkii rasaasta ahaa ayna ka timid kuuriyada waqooyi. arrintaasna ay maqasho Mary. dhowr habeen kadib Mary waxay aragtay Sion si la yaab loo dhaqmaya waxayna ku qasabtaa inuu sheego wixii uu arkay. markii ay maqasho Mary waxay dhaqso u tagtay xusuusta aabaha Mansuur halkaas oo ka heshay qora quruureed taasoo cadeynaysa in qorigii dhabtaha la qaatay. iyadoo argagaxsan waxay u carartaa dhanka beerta waxay noqotay geedkii cusbaa waxayna halkaas ka heshaa meydkii la aasay. dhanka kale Sinjo wuxuu si farxad u wadaa gaarigiisa markii si maflaan qof jidka uga soo baxo. wuxuu si dhibir u joojiyay gaariga wuxuuna ogaaday inuu yahay Mansuur. Mansuur wuxuu sheegay inuu muddo daawanay muuqaalihiisa isla markaana uu yahay taageere wuxuuna tusayaa dhalo khamriga wuxuuna ku casuumay inay wada cabaan. labadooda waxay aadaan guriga Sinjo. Mansuur si joogto ayuu ugu shubaya cabitaanka Sinjo halka isagu iska dhigay inuu cabayo balse si qarsoodi ah uu khamriga ugu daadinay miiska hoostiisa. Sinjo in badan u caba cabitaanka wuxuu bilaabay inuu ka cawdo shaqadiisa wuxuu qortaa inuu shaqo badan haysto markaana uu jeclaan lahaa inuu helo qof kale oo caawiyo. Mansuur aad buu u farxaa arrintan wuxuuna ku qanciyay Sinjo inuu madaxiisa kala hadlo si loo shaqaaleysiiyo. waxaan u ballan qaaday inay noqon doonaan koox fiican. iyagoo weli sheekaysanaya Mansuur si kaftan uga hadlaa guriga quruxda badan ee Sinjo isagoo leh waxaa laga yaabaa inuu lacag shirkadda ka xaday. hadalkan ayaa sina maflaan uga dhigay Sinjo mid aad u feejigan. Mansuur wuxuu banayay in wax walba fashilmeen wuxuuna si qarsoodi u tabtaa qorigiisa laakiin Sinjo kaliya wuxuu soo saaraa biir dheeraada wuxuuna ku qasbay Mansuur inuu cabo. sidaas daraaddeed Mansuur wuxuu soo qaatay qabsad wuxuuna isaga qorigiisa ka saaraa iliga. kadib labadoodu waxay u baxaan banaanka si ay u raaxaystaan dab banaanka laga shiday. Mansuur soo ka faa'iidaysanaya fursadan wuxuu suuxiyay Sinjo kadib wuxuu ku aasaa barxadda dambe isagoo madaxa qayb ka mid ah ka reebaya. isla markaas Mary ayaa ku soo wacda muuqaal ahaan. Mansuur wuxuu shitaa codka kaliya wuxuuna iska dhigay inuu shaqo ku jiro. Maryna waxay u shitaa haddii wax uu sameynayo in iyadana ay la sameyn doonto. sida maflaan Sinjo ayaa soo toosa kadibna Mansuur wuxuu ku jiraa wicitaanka waxaa afka Sinjo gelinaya funnel wuxuuna ku shubaa hot dog la shiiday iyo khamri. markaas wuxuu madaxa uga duubaa caag si uu neef qabatoobo. dhowr daqiiqo kadib Sinjo halkaas ayuu ku dhintaa. kadib Mansuur wuxuu meydka u wareejiyaa kursiga isagoo dhinac dhigaya dhalada khamriga si uu u ekaato inuu ku margaday khamriga. dhanka guriga Sion wuxuu ku riyoonayaa riyo cabsi leh ku saabsan aabihii wax la yaab lagu sameynaya aqalka dhirta. Maryna way toosday waxayna u sheegtay in Mansuur uu jarjaraya hilib doofaar uu isticmaalo bacriminta beerta iyadoo dejinaysa. subax xigtay Mansuur wuxuu yimaadaa guriga wuxuuna Mary u sheegay in wareysiga si fiican u soo dhacay balse sidoo kale tusaa iliga uu iska soo saaray. maalmo kadib Mansuur wuxuu yeeshaa wareysho guul leh wuxuuna helaa shaqadii Sinjo. dhanka kale Mary waxay dib u soo ceshatay eeyihii waxayna bixisay lacagta guriga si aan loogala wareegin. baarayaashu marka la soo laabtaan waxay u sheegeen Mansuur inuusan hadda ahayn tuhmanaha waxayna sharxaan in Era ay si harsala u matashay doorka xaaska murugaysan taasoo ka dhaadhicisay booliska in Baalmo lahaa qorigii sharci darrada ahaa isla markaana uu dilay Sinjo kadibna uu baxsaday. waxayna xitaa si sax ah u aqoonsatay qorigii iyadoo sawiro badan la tusay. sidaas daraaddeed booliska hadda waxay aaminsan yihiin in Baalmo uu dilay Sinjo isla markaana uu isqariyay. maalintii ugu horeysay shaqadiisa cusub Mansuur wuxuu galaa warshad maran wuxuu u dabaaldegaya guushiisa isagoo dhegeysanaya muusig isla markaana kormeeraya mashiinada cusub ee shaqaalaha bedelay. halkaas ayuu kusoo dhamaaday.